إن شاء الله مركان وحن آذينا ميكروفونka dhanka bidix soo dhawo walaal Assalaamu calaykum magacayga waa Rajesh waxaan ka shaqeeyaa qaybta kombiyuutarada iyo tiknoolajiyada caalamiga ah Su'aasheedu waxay tahay maxaa diin loo helayaa maxaa tiri walaal diin maxaan diin ugu baahanahay sida islaamka oo kale adiga diinta islaamka ayaad faafinaysaa tusaale ahaan walaalka su'aal wanaagsan buu na weydiiyay maxaan ugu baahanahay diin sida islaam ama diimo kale walaal haddii aad fahansan tahay macnaha kelimada diin marka loo fiirsho dictionary-ga Oxford waa rumayn jiritaanka awood weyn oo wax maamusha kuna xiran ilaah ama ilaahyo kale oo ay dadku caabudaan islaamka kelimada carabiga ah ee la adeegsado waa diin islaamka waxa laga wadaa wadadii nolosha haddaba adigu waxaad weydiinaysaa oo leedahay maxaan ugu baahanahay wadadii nolosha maxaad ugu baahan tahay inaad fahanto sida lagu sheegay Oxford diintu waa rumayn la rumeeyo ilaah maxay waajib noogu tahay inaan fahanno Allah jawaabtu waa sidan soo socota walaal caada ahaan marka aad rabto shay inaad iibiso laga yaabay shay aan horay loo arag inuu yahay adeegsigiisuna adag yahay waxaad ku daraysaa waraaqad ay ku qoran tahay waxyaabaha ku saabsan haddaba aan ku su'aale warqadaasi maxaad ugu daraysaa maxaa dhacay maxaad ugu daraysaa walaal si aan u fahmo run ahaantii waa sidaas maxaa yeelay ma fahmaysid sida loo adeegsado haddaba haddaad ii ogolaato inaan u tilmaamo dadka aaladaas haddaba waa inaad ugu waafaqdo inay shayadaas yihiin kuwa aad u adag fahamkooda haddaba maxaad u aamini la'dahay in aaladani ay u baahan tahay daliilkaasi dadka la tusinaya si ay u ogaadaan daliilkii wax la tusinayay ee ugu dambeeyay basharka wax tusinayay quraanka kariimka ah isla tusaalahaas oo kale marka aad ka helayso warqadaasi ku saabsan aaladda aad gadatay ninka shirkadda iska leh kana abuuray ee na sameeyay waa Allah subhanahu wa ta'ala sida oo kale wuu og yahay waxa dadka u wanaagsan iyadoo arinta jirto haddaba Alle wuxuu na siiyay qawaacid iyo qawaaniin aan ku socono tusaale ahaan haddii aad rabto inaad adeegsato DVD warqadda la socota waxaad ka helaysaa haddaad rabto inaad shido oo rabto canjalada inaad geliso badhanka laga shido ayaa taabanaysaa haddaad rabto inaad si degdeg ku socodsiiso badhankaas ayaa taabanaysaa haddaad rabto inaad canjalada ka bixiso badhan kale ayaa taabanaysaa si aad u joojido codka socday haddaba ma rabtid inuu ka soo dhaco si uu kugu fiicnaado oo uusan kaaga halaabin haddaba taasi waxaad ka ogaatay daliilka iyo warbixinta lagu soo daray sida oo kale Allah subhanahu wa ta'ala quraanka kariimka wuxuu inoogu sheegayaa waxaan sameynayno Allah hal diin oo kaliya ayuu noo yeelay si cad Alle wuxuu ugu sheegayaa suuratu Ali Imran waa suuradda 3 aayadda 19 diinta kaliya ee laga aqbalayo Alle agtiisa waa diinta islaamka waqtiyadii hore ee aan soo dhaafnay marka Alle subhanahu wa ta'ala uu soo dirayo daliil dadka tusinaya wadada saxda ah isla daliilkaasi isbedelka waqtiga ayuu asna isbedelayay Alle subhanahu wa ta'ala wuxuu ogaa dadku inaysan u dulqaadan karin quraankan kaamilka ah in lagu soo dejiyo sida lagu sheegay Gospel of John chapterka 16 faqrada 12 ilaa 14 Ciise calayhi salaam wuxuu leeyahay waxa ii ahaaday arrimo badan si aan idinkugu sheego laakiin uma dul qaadan kartaan markuu yimaado midkaasi waa ruuxdii xaq ahayd wadada xaq ah ayuu idinku toosi doonaa Alle subhanahu wa ta'ala wuxuu ogaa 1400 sano ka hor in uu yahay waqtiga munaasabka ah ee dadka ay fahmi karaan risaalada uu wado quraanka kariimka sida darteed islaamku wuxuu ku yimid si kaamil ah 1400 sano ka hor ee tagtay waxyigii ugu dambeeyay ee la soo dejiyana wuxuu ahaa quraanka wax kasta oo soo degay oo waxay ahaa quraanka ka hor isla risaaladaas ayay wadeen in la rumeeyo hal ilaah cibaadada dhabtaana uu isagu leeyahay waa Allah aan lahayn sawir iyo waliba sanam ama wax lamida risaalooyinka oo dhan arintaasi waa ay ka mideysnaayeen laakiin se isbedelka dhacay darteed kutubta muqaddaska Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu soo dejiyay quraanka sida Allah subhanahu wa ta'ala ku sheegay suuratul hijri waa suuradda 15 aayadda 9 innaga ayaa soo dejinay quraanka innaga ayaana ilaalinayna waa midaas sababta quraanku inuu yahay waxyigii ugu dambeeyay ee Allah uu soo dejiyo kadibna Allah subhanahu wa ta'ala dusha ayuu u ritay inuu quraankaasi isbedel ka ilaaliyo waa isla sababtaas waxa waajib ku ah dhammaan basharka maanta inay raacaan rasuulkii rususha ugu dambeeyay Muhammad calayhi salaatu wassalaam oo ina raacaan risaaladii Alle la soo diray dhammaan kutubta samaawiga ee quraanka ka hor soo degtay koox gaara iyo waqti gaara ayay ku ekaayeen basharka oo idin looma soo dirin sida quraanka oo kale risaalooyinkaasi hore dad kooban ayaa loo soo dejiyay ilaa ay ka soo degtay risaaladii ugu dambeeyay Alle subhanahu wa ta'ala waajib kuma ahayn inuu xafido risaalooyinkaas hore
laakiinse markuu soo degay waxyiga cusbaa oo uusan jirin waxyi ka dambeeya isla waxyiga alle wuxuu dusha u ritay inuu waxyiga iyo risaalada ilaaliyo haddaba diinkan looma soo dejin muslimiinta iyo carab oo kaliya waxaa loo soo dejiyay basharka oo idil iyadoon la fiirinaynin meeshay degan yihiin ma Dubai ma Hindiya Pakistan Sacuudi Carabiya Mareykanka Ingiriiska ama Canada basharka oo idil waxaa ku waajibay inay waxyi ugu dambeeyay ee la soo dejiyay inay raacaan